cutub ka tirsan ciidanka sida gaarka loo tababaray kumaadooska waa Gorgor waana qayb ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa loo diyaariyay burburinta saldhigyada kooxda Al-Shabaab iyo samatan bixinta shacabka Soomaaliyeed ay dhibaateeyeen. waxa la iga rabaa ciidamada kala duwan la socona spirit military wax la yiraahdo si baa la yidhi spirit military ya waliga yaaliin yaan la iga dareemin adigoo saacad qofka qaba aday karti sidii lagu yaqaan ururkoobaad si waxmalay ma waa xilli saqdhaxa ah waxay u diyaarsan yihiin gudashada waajibaadka loo xil saaray waxay ku wajahan yihiin deegaano ay ku dhuumaalaysan jireen kooxda argagixisada Al-Shabaab. halkan waa biyo mareyn kooxda Al-Shabaab ayaa isku dayay in ay joojiyaan awoodda ciidanka kumaadooska ee Gorgor waxayna ku fureen biyo iyo in ay burburiyaan kanaalkii ay biyuhu marayeen waxaana ka howlgalay ciidanka xoogga dalka ee Gorgor intii uu socday socdaalka howlgalka qorshaysan ee ciidanka Gorgor ay ka fuliyeen deegaanada Mubaarak, Daarusalaam, Wariirilow ee hoostaga degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidanku waxay qarxiyeen miinooyin ay hadhulka ku aaseen horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. howlgalku markuu soo idlaaday ciidanku waxa ay sameeyeen baaritaano lagu xaqiijinayo ammaanka iyadoona lagu soo qabtay horjoogayaal ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab. sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku dhigay dukumeentiyo ay lahaayeen maleeshiyaadka shabaabka iyo sidoo kale xafiisyada ay ku qaadi jireen canshuuraadka kan degmada iyo baloogyo kale oo maleeshiyaadku ay shacabka ay ku dhibaateyn jireen. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta codka ciidamada deegaanka Mubaarak, degmada Owdheegle gobolka Shabeellaha Hoose.